harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa dhulkaaga lagu ogaa harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa hamun looguma dhintee hoogantiisad hoogantiisad cunta dadkaagaad yeeshataa ciidadaad haybsataa dadkaagaad yeeshataa ciidadaad haybsataa والتين والزيتون والطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم كل هالكن وبركة بلغ محمد نور oo ka hoostaga meelaha hoostaga gobolka Daadmareed barakacaasi waxa uu ahaa muddo sanadkii hore 12kiisii ayaa reeraha asaas mareerka horeeyay soo dejiyay welina sidii bay ugu socdaan waxaanay marayaa imaka in guryaha dhisatay iyo in ku hoos noolo guryaha la gasha dadan 150 qoys ayay marayaan dadkaasi qaar ba saddex qoys u gala guryaha afar qoys qof waliba qofka awood yeelan waa qofka kale guriga la gala waxaanu maanta ku soo dhaweynaynaa oo maanta iyo maalmo badanba noogu yimi oo eegay dadka jilicsan bana saabka gobolka Daadmareed gobol bana saabka waxaanu leenahay hambalyo waa ku soo dhaweynaynaa hore waxba doogu qabatay waxa raaca bana saabku maaha maanta qura waxa uu ku yimi maalmo kale adinkiisa wax qabadkiisa awood wixii uu lahaa waxba lama harin wax uu qabtay qaybo badan oo hay'ada ah midba waxa la naga siiyayba ayuu wax ku qabtay waxaanu ogaaday dhibaatada iyo jilaaca maantana wuxuu yimi inuu ogaado jilaaca iyo baahida taala meesha way ducaynina Allah raajiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu noo sii hayo waxaanu leenahay bana saabku anigu waxaan garanayaa 4 bana saab intii anigu aan garanayo gobolka Daadmareed 4 bana saab waxaanu uu noqday kii kaliya ahaa noo shaqeeyay wuxuu noqday kii kaliya ahaa nabadgelyada ka shaqeeyay wuxuu noqday kii kaliya ee baahida dadka dhaxmarkeeda iyo ogaanteeda ka shaqeeyay wuxuu noqday ka kaliya ee nabadgelyada waxa ugu qaalisan waa nabadgelyo ka kaliya ee meel kasta oo ay nabadgelyadu la gashay isu taagay wuxuu noqday koorumarka ka shaqeeyay wuxuu noqday ka dhaqaajiyay gobolka meel kasta oo xubin oo la taabtaba dhaqaajiyay ee maanta uu heer wanaagsan gobolku ka noqday buu noqday Allah raajiyo waxaanu aragnaa maanta haddii ay tahay Soomaaliland 20 nin ama 50 nin ama 100 nin oo sida uu shaqeeya inay noqon lahayd meel sare inay igsan lahayd iyo isaga iyo kuwa la midana Allah inoo raajiyo kolley waxa uu maanta u yimi bacadka u fadhiya maalinta Jimcaha u yimina waa jilaaca dadka iyo baahiyaha iyo duruufta waa iyo biyalaanta ogaashiya iyo baaritaanku buu yimi
والسلام عليكم waxaan ku wareejin doonaa odayaasha balliga maxamed nuur waxaan halkan anagu horta xasuutii xalay baanu nimi waxa aanu ku soo dhaweynaynaa barisaabka gobolka Daadmareed oo u yimi arrimo oo kurgal ah baahiyaha iyo barakacayaasha iyo duruufaha ka jira runtii si fiican ayuu runtii barisaabku oo dhow ayuu ula socdaa baahiyaha iyo duruufaha ka jira balliga maxamed nuur ilaah baa mahad leh hadlayna anagoo ka hadlayo goobtan dhooba weyne ama balliga maxamed nuur ummadeeduna tuban tahay maatida taalana aan ka mid ahay waa hooyooyinka waaweyn ee mas'uulkaana aan ka mid ahay waxaan u sheegayaa ummadayada Allah nala qabtee waxaan u sheegayaa inay qabaan baahi biyood baahi hooy baahi waxbarasho carruurtayadu boorka aan waxba laga xigsiin malcaamadda waxaan u sheeganaynaa waayaha jileeca ama gaadiid la'aanta nagu hayo ama tabayaraanta qofka naga xanuunsada inaanu muddo la warwareegno gaadiidaan ku gaarsiisano magaalooyinka aanan haysan waxaan u sheegayaa ummadayada in barkadii naga qabyo tahay in baligi naga maran yahay biciyo nagu yar yihiin waxyaabo maatidan anfici karaa aanay meesha oolin xagga dawooyinka iyo dhakhtarnimada inaanan haysanba waxyaabaha noogu darani waa waxyaabaha iskuul taladiima ma hayno dadkii duunyana ma raaco meel laguma tiirin sidaasaan u sheegayaa dadka iyaga macaawiya ama hay'ad wali wax naga soo gaadhin qoraalka mooyaane dadweynaha iyaga dabada naga caawiyana Allah ma hadii baan uga mudan yaanu ugu sharaf gelinayna ilaahay halkooda ay nooga soo saaraan wax khayr laha ka siiyo barisaabka gudida noo timi gudoomiyaha iyaga intana madaan sharaf qurux iyo mahad la baan u cilinayna assalaamu calaykum baa kaga hadhay بسم الله الرحمن الرحيم barisaabka gobolka Daadmareed Axmed Diiriye Cabdilaahi oo runtii iyadoo maanta ay jimco tahay oo aanu shaqada u lahayn isa soo xilqaamay kartayna ummadiisa inuu u shaqeeyo xooluhu ay ka baxeen iyagoo ku sugan balliga maxamed nuur barakacayaasha degan balliga maxamed nuur barisaabku maanta wuxuu u socdaa siduu idin dhayndeeyo baahiyaha idin haysta sida biyo la'aanta iyo inuu biyadhaan degdeg idin sameeyo qayladhaan idin diro hay'ado kalena idinku soo kordhiyo barisaab barakacayaasha balliga maxamed nuur waxay kaaga mahad celinayaan sidii hore aad ugu shaqaysay ee labada hay'adood aad ugu keentay maantana waxaan ka codsanaynaa barisaab mar labaad dadka xooluhu ka baxeen ee carruur iyo waayeel bale in aad u shaqayso barisaab oo maanta waxa waliba biyadhaan qayladhaan aad u tirto biyadhaan la soo gaadho barisaabka gobolka Daadmareed inuu qayladhaan gobolka oo dhan u diro Daadmareed 56 tuulo iyo 4 degme ka kooban tahay inuu baaq dheer u diro isagoo baryahana safarkiisa si wadan doona una kura gali doona meel ka soo barakacayaashu degeen ala tuulona oo isu taagi doona barisaabku waxaan ku garab taaganahay sida fiican ee ugu shaqeynayo ummadiisa jilicsan ee maanta xooluhu ka baxeen ayaan ku garab taaganahay wadana gudoomiye barisaab ku soo dhawow barakacayaasha balliga maxamed nuur maanta waxaanu joognaa balliga maxamed nuur oo ay ku soo barakaceen dad fara badan waxa weeye hay'adaha caalamiga waxaan ugu baaqayaa in dadka gurmad degdeg ah la soo gaaro dadkaasoo dadkii xooluhu ay ka baxeen in gurmad degdeg ah la soo gaaro xagga biyaha haday noqotana waxa weeye waxaan ballan qaadaynaa inaan muxuu ahay boodda ugu horeysa idin soo dirno haddii aan la idmo balliga maxamed nuur waa goobaha dadku ay aadka ugu soo barakaceen gobolka Daadmareed markay noqoto run ahaantii waan ka howlgali doonaa waxa weeye haday noqoto xagga hay'adaha iyo haday noqoto xagga xukuumad ahaan
boqolkiiba boqol waanu ka howlgelinaa sida ugu dhaqsaha badan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad hay'adaha ugu baaqaya caalamiga inay gurmad degdeg la soo gaaraan dadka ay xooluhu ka baxeen dadkaasoo muxuu ahaayey aad u badan run ahaantii annaguna ka gobol ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu gurmadka ugu horeeya la soo gaadhno haddii ilaahay yidhaahdo kolley waxa ugu horeeya horta aanu soo gaarsiin doonaa waa xagga biyaha waxa weeye waanu ka howlgelaynaa gurmadka ugu horeeya xagga biyahana waxa weeye haddii alla idmo waynu soo gaarsiinaynaa booyadda ugu horreysa insha allah waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu